qof kasto adduunka kadeedan balada u fiirso oo noloshu ka adag tahay laba meelood baa laga haystaa inta badan qofkaas baladaad u dhabagasho ama xagga cibaadada ilaahay uu ku liitaa oo xaqi ilaahay iyo cibaadadii baa loogu taaglaayay ama uu ku xun yahay ama xagga kale oo maxay ah qaraabada oo waalidku u horeeyo buu ku xun yahay labada qofka miduu ku xun ilaahay noloshu ku dhibaya isagana subhanahu wa ta'ala wala kadeedaya wala rafaadin xitaa haduu awlaad yeesho awlaada ilaahay ku salidaya subhanahu wa ta'ala kuwa faraha laga gubtay oo isagu faraku gabad uu ka yahay wala faraha loo gelinaya baahiye busaarad ba Allah ku kicinaya gebigiisu shoolad ba ka baxay caadi ma ninkaas labada sababood baana keeni kara rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam man sarrahu qofka ay ka farxinayso oo ku farxaya an yubsata lahu fi rizqi rizqiisa in loo waasiciyo oo loo ballaariyo ilaahay rizq waasica uu siiyo aw ama sayunsa lahu fi athari daadkiisa loo dibdhigo oo cimri dheer ilaahay uu siiyo Allah ka cabsado qaraabadiisa ha xiriiriyo falyasil rahimahu rahimkiisa waalidku horeeyo ha xiriiriyo waalidkiina baariha u noqdo